magaalada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maygeeka booqashaha ka deeray wafdiyo shal hogaamiyayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wafdigan ka horeeyay ee Baraawe hadeer oo uu soo hogaamiyay madaxweyne Abdicasiis Laftagareen garoonka diyaarado magaalada Baraawe ee ka dhawaayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Dr. Ali Saciid Fiqi wasiir agaasimaha guud madaxtooyada maamulka degmada Baraawe iyo qaybo shal duwan bulshada caasimada antaas kureed daqiiqado kureed garoonka diyaarado magaalada Baraawe ee xaag dhigatay diyaaradii wafdigu soo hogaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble oo garoonka diyaarado magaalada Baraawe ka dhawaayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen gudoomiyaha baarlamaanka lamada golo dowlad goboleedka iyo qaybo shal duwan bulshada magaalada Baraawe ra'iisul wasaare injineer Rooble iyo madaxweyne Abdicasiis Laftagareen yaa dhawaayo iyo shal warqaadasho kureed lahan galbi qasriga madaxtooyada magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed meelaas oo wada jira yoon kala hadleen warbaahinta madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo koreen saxaafadda la hadlay mayso kuma adnagay hadhawaayo iyo lansuubi maynu soo warbixin ku sii ra'iisul wasaaraha dalka goobo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aan qorshayti intii la ka qabado doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta oo ay Oktoobar tahay 3 maalin axad ah waxaa sharaf weyn noo ah wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya inuu nagu soo booqdo caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed runtii dadka reer Baraawe iyo dadka reer Koonfur Galbeedba maanta waxay u tahay maalin muhiim ah oo shucuurtooda aan la qiyaasi karin imaashaha ra'iisul wasaaraha oo muddo soo socotay inuu imaado kormeerkiisa ay ka mid ahayd ujeeddada socodka ra'iisul wasaaraha waxay tahay asaa idiin sheegi doono laakiinse waa dardargelinta heshiiskii doorashooyinka ee madasha qaranka lagu heshiiyey ee 17 September iyo 27 May in la dhaqan geliyo lana bilaabo doorashooyinkii sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabo kormeerkii uu horey ugu sameeyey goobihii hore ee xarumaha dowlad goboleedyada dhan yaa hadda waxay bilow ka tahay tan kormeerkii labaad ee xarumihii labaad ee loo asteeyey in doorashooyinka ay ka bilowdaan yaa haddana si markii horeba aan nasiib ugu helnay xaruntii hore markuu ra'iisul wasaare noqday kormeerkiisa ugu horreeyay inuu Baydhabo ka bilaabo yaa haddana waxaan nasiib u helnay oon uga mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha in haddana xaruntii labaad ee doorashada kormeerkii labaad uu kow ayada uu ka bilaabo isaga oo kulli mari doono inkasta oo ay naga horreysay Garbaharey haddana laakiin waxay ahayd arrin dib u heshiisiin laakiin hadda ajandaha loo socdo doorashada annagaan number 1 ahaan aaminsanahay mudane ra'iisul wasaare aadaan ugu faraxsanahay imaashahaada soo dhawow ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble yaa ku mahadnagay hadhawaayo iyo suubiyan mas'uuliyiintan ka sareyta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaybo shal duwan ee bulshada caasimada Baraawe maynu si tilmaamay socdaalka intii ata sidii soo ka kuura gal lahay xaaladda dhabta ee ku jirta magaalada Baraawe iyo sidii soo kormeer lahay goobo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aan qorshayti intii la ka qabado doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya runtii sidii uu walaalkay sheegay madaxweyne Abdicasiis Laftagareen maanta farxad weyn ayay ii tahay inaan imaado magaalada taariikhiga ah ee xadaarada leh ee ilbaxnimada ka soo jeedo waa Baraawe oo ah caasimadii Koonfur Galbeed dowlad goboleedka Koonfur Galbeed muddo ayaan ku taamayay inaan halkaan imaado hal sano iyo waxay ugu qaadatay bilooyin laakiin maanta ayay qorneed inaan imaado waa ku faraxsanahay ومقالدي
loo diyaariyey doorashooyinka koonfur galbeed inay halkan ka dhacaan. sababaha halkan u imid waxaa ugu horreeya inaan booqdo goobaha ay doorashooyinka ka dhacayso, deegaanada, cisbitaalka degmada Baraawe iyo dhammaan shacabka ku nool degmada Baraawe inaan indhahayga ku soo arko duruufaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhinaca kale walla ku xumaada ka tilmaamay barakicinta laha ka soo biidadka ku jeedi deegaanada koonfur galbeed ee ka noolay magaalada Laascaanood maynuusa tilmaamay kan dowladda federaalka ahaan anti iyo ku xunyin usugana bulshada Puntland iyo shacabka iyo ganacsatada banka baaqi anti iyo gargaar la diiran bulshada laha barakiciyay in dad Soomaaliyeed laga soo celiyo Laascaanood, dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiil iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb, waa mustaqbal xumo, waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool Laascaanood maanta la yiraahdo ka guura koonfur ka timaadeen waa ayaan darro. laakiin taariikh ayaa qormayso. waxaan rajaynayaa shacabka ku nool Laascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan, tusaan wadajirka, Soomaalinimada, ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay. dalkan waa inaga badan yahay, dalkan magaca Soomaali ayaa lagu leeyahay, cid Soomaali kale ka xigta ma jirto. Faisal Maxamed Isaaq, TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed, caasimadda Koonfur Galbeed, magaalada Baraawe.